baarkaan lugaynaya waxaan idin sheegayaa horta aniga waxyaalo badan iga xanaajiyay waxa iga xanaajiyay dadka Soomaaliyeed oo u eeg dadka qaar inay important muhiim yihiin dadka qaarna loo tirid garanaa like maxaa kaaga sheega wax aan la sheekayn haddan dad baa lacag lagu siinaya naaga lacag lagu siinaya lagu fangareynaya inay isla simaan dad evan dhintay hadda naag baa halka ka soo hadashay waxa isla sintay gabadhii Caaisha lalahay oo dhimatay oo nimanka gabadha dhalinyarada intay la sheegay intay ka gooyeen dileen waxa weeye cusbitaal uma ay galin kufsi naagta saa u hadlaysaa maanta waxay leedahay maxaa lawyer xitaa haddii loo qabto record ma haysato ya annagii recordka haysanay ee kufsiga recordka haysanay ee cusbitaalka u galay ee gabcahana la ka jabiyay ee wali ay Mareykanka nagu haystaan ee wali Mareykanka nagu kufsanayaan wax laga qabtay male lawyer iska daa'ay wax xitaa amaan nasiye male maashi aan tagnaba way nooga daba socdaan xin iyo xaasidnimo iyo nagu wataan waxa idin sheegaya anaga waana kufsateen Soomaaliyay aniga Soomaali ma kala reebayo waana inoo dacwad waana kufsateen waana disheen waana xirteen proof baan neehayna proof baan hayna anaga waxa aan ka hadlaayo wax proof ah waaye oo cadaan ah ya harassment-iga aad ugu sameeynaysan iyo sida aad reerkayga u baabi'inaysaan laakiin taasu waxa lala sameeyaa is nothing waxa lala sameeyaa sida Soomaaliya wali loo tirid gareynayo dadka Soomaaliya ku nool sida loo tirid gareynayo oo loola dhaqmayo ayaa anaka halka Mareykanka anagoo joogno nala sameeyaa ya same thing ayana lala sameeyaa marka maxaa u maleynaysaa ya maxaad u maleynaysaa adiga oo Mareykanka adiga oo joogo ina adiga qof Soomaaliya lagula sameeyaa ma ogta حتى Soomaaliya bas waan u galay Soomaalida baa Soomaaliya joogto waa kufsanay Soomaali still wali joogto waa dileena waa Soomaali still wali joogto still we killing Somalia people in Somalia we still raping that is means is nothing to them to rape here in America to us and they are dead still continue it's okay to rape in people in Somalia it's okay to rape gabar Soomaali joogto inaad disho kufs ku disho it's okay marka halkan America maxaa u maleys inay ka tahay waxba kama aha wali kufsiga waan ku jirnaa wali reebka waan ku jirnaa wali abuse waan ku jiraa hadda homeless waan ku jiraa wax walba waan ku jiraa laakiin u maleynaysa dadkan inay ku deynayaan dadkan waa dad gaar ah oo tababaran inay dadka Soomaalida ay ka dhigaan law everyday law life every day make you law life you happiness you want exercise you want to go job you want to go do they don't want you to do that yeah because maalinta ay saan sameynayaan maalinta ay qof adiga aan kula simayaan the day that they make you the same person that is not the same to you the day every day they make you woman that did not get raped they make her that she got raped to give her money to give her job just to you make you a voiceless حاجرنا right now lacag lagu siinaayo oo guri lagu dajinaayo hudheel lagu dajinaayo in aniga maarta kiiskeyga ay dhulka dhigaan oo aniga ay dhibaateeyaan oo aniga maarta iskala ka dhigaan samasdam ama inay iga sii dhibanahay iga siihiinba laakiin aan dhibana ahayn there is a woman right now acting me even more survivor than I am who getting paid getting house getting money getting place to stay, getting everything that she wants because she want to avoid and reduce my victimization. Yeah, somebody getting pay her, somebody paying her. Naagta bixinaysan oo naagta fangareynaysan waa naag Soomaaliyeed. Laakiin Ilaahay waxaan ku codsanayaa inay iyada hoosteeda inay ka hesho. Hoosteeda inay ka hesho naag kale ku fangareynaysa ee lacag ku siinaysa inay aniga dibkayga qariso anigu horta maalin kamid lawyer waa helayaa nolosheeda waa helayaa waay aniga Soomaaliya waa kufsateen waa xideen waa disheen ilmahayga waa ugu tuurteen waan kursaday haddana wali waa daba socotaan walaashay waa kufsateen
وقريسين مريكان كوديس وكفستين وقريسين المهدي وكدعدين haddana wali waa qarinaysaan qol baa ku xareynaysan naakilan lacag waxa ku siinaysan ina wax ku siinaysan ina qariso ina anaga xilteena qariso xaqeena qariso baa naag ma jeerteena lacag ku siinaysan oo xoolo ku siinaysan oo guri ku siinaysan oo wax ku siinaysan bakaas waa naag ma jeerteena ya ayada ma jeerteenimadu waa u qirsantii anaga adoomaan ugu sheegaysin dhul baanta xitaa noo ma qirsanid anaga dadkeena meel xaqay qabiilkeena xagu ka dhacay anaga dad deesantantigeena ama joogan miya oo noo heliyo haye maxaa ku dhacday inaad dadka qaarna baabi'isaan dadka qaarna waxayna ahayn u sameeysan kiisasta u sameeysan ku caawisaan maxay ku dhacday you are creating some people for the cases that to assist them and some people you want to hide and seduce their cases yeah aniga Aisha gabadhi Aisha the girl called Aisha got the dead for get rape. But you know what I could do? I could dare too because I was hospitalized. Yeah, I got raped. I was hospitalized. I could die. Nobody care. Nobody get me a lawyer. In my case, I was qari. Hay ila hadda waa la qarinaya. You know? Why? Because people think inay wax walba sameeyaan. Inay maar dadka ay dhibaato u sameeyaan. Ay is dhus garayaan. Bay barteen. Yeah, inay wax walba qariyaan bay barteen. Aniga, I was 20 days in a hospital in Kenya. I had a United Nations pay my hospital for 20 days. I got raped, I got tortured, I beaten. I have never got a lawyer. I never got my case to be heard. My case was hidden up to now. Naga ben hal aqlu siyaasa codkayga voice-kayga loo maqlin laakiin adduunweynaha waxa ka codsanaya I am asking United States of America in a lawyer siiso waayo aniga kufsigii iyo dilkii ii geystay Kenya iyo Africa la igu geystay wali dhibaatada way haysaa dhibaatada wali I have the problem I cannot work my back my hurting everywhere is hurting hadda waxa la igu qasbayaa inaan shaqeysan naagta ma shaqeysato guri la'aan laga dhigo kan harassment badan ayaa Soomaalida ugu haysaa Soomaalida Mareykanka joogtana kufsi kala ay ugu wadaa another problem the Soomaalida United States and the kufs they threaten me because my victimization I came here to rest to get life to go to school I never got those things I never got married I have lived a survivor life I have lived a suffer this civilization is civilization kala igu sameeyay wali Soomaalida way ila daba socotaa as long as they are doing to back home they continue here yeah so waxa idin sheegaya it's okay to rape it's okay to torture it's okay to destroy to wipe people up because you still a president marka waxa waaye Somalia you're still president Somalia still he never lose his job he never have negotiation or never have send a consolidation of message to the people that the young woman that get raped I never heard a president of Somalia sitting down and say waan ka xunnahay gabadha yar Soomaaliyeed ee saa loo galay ee la kufsaday ee la dilay ay kufsiga lagu dilay ma dhahayo intaas oo gabadha Soomaaliyeed intuu ninka madaxweynaha gabadha yar lagu kufsaday buuhoodle mid ka timid oo garow lagu kufsaday mid kale oo waxa lagu kufsaday Laascaanood waxa lagu kufsaday mid kale waxa lagu kufsaday oo lagu dilay maxay magaalada maxay ahaydey gaalkacayo waxa uu ka hadlay ninka dhanna madaxweynaha Soomaaliya looga dhigay asagoo oo dhahayo waa ka xumay xitaa ma maqlaysid nin qura oo Soomaaliyeed oo meel madax ka ah Soomaaliya madax ka ah oo dhahay I sorry what happened to my country I sorry how my young girls get raped I sorry how this I never heard it so waxaan aniga madaxweynayaal uma aqaanay waxaan u aqaanaa tuugo thieves stealing people baan u aqaanaa aniga waxaan anigu madaxweynayaal uma aqaano marka ayaga dadka ilaaha nin ku dhaari ragga saboor gareynaya Amerika jooga ragga dadka saboor gareynaya in naagaas oo Mareykanka noo joog oo anaga wax nala ka weydiiya oo dawladda Mareykanka wax naga oo community iyo lacag ku gurta haddana waxay fangareeyaan naago aan waxba ku dhicin naaga aan waligood la kufsanin bay fangareeyaan oo anaga ku qariyaan kiisaskeena ku qariyaan kuwii la kufsaday Mareykanka gudihiisa lagu kufsaday walaashii la kufsaday oo la qarinaayo oo marka afarta caruur ninka xoogay la kufsaday ninkii kufsaday oo intuu dawooyin wax siiyay oo meel xanuunsanays uu kufsaday qarinaya oo kiisas badan ognahay baa jira oo la qarinaayo oo waxba laga qaban dadka sidaas loo caasaya meel walba waxba laga ma qabanaayo adduunweynuhu waxba ka qaban maayo
waayo wuxuuna waxba uga qabanayn dadka adiga ku hadli lahaa ee adiga ku matalhayay ayaa waxaan dhan ka dambeeyo waxaan ugu sheegaya dawladda Mareykanka oo u sheegaya inay ka jarto Soomaalida jaarbalka ah inay ka jarto lacagta oo jaarbal waxba kuma qabtaan dadka masaakiinta uma shaqeeyaan ayaga ayaa dana kala ku raacda marka waa inay lacagta jaarbalka ka kansashaa all the jaarbalkooda waa inay kansasho way because they don't do the right thing. They don't help assist the people, the vulnerable people. They don't support their victims. They don't support anybody in the United States or anybody back home. The only thing is they buy big houses, big cars. They send their kids to college. That's all they do. They don't assist anybody. They're disadvantaged people, have no husband, have no children, have no job. They disadvantage people, they more destroy them, they more abuse them, so they need to lose their funds.